shirkadda korontadan ka shaqayn jiray mushaar fiican baan qaadan jiray kadib macaan iyo dhiikar baan yeeshay waan awoodi kari waayay inaan shaqada sii wato oo salaam fiyadeer alaabta iibinaysaa qarash fiican ma kaa soo galaadeer alxamdulillaah wallaahi raasamaalkeedu baa soo gala dad wanaagsan baa qarash fiican iga siista badanaa wax oo dhan bay iga qaataanba maasha Allah gargaari dhiirigelin midhka meeqaad siisaana midhka 30 gini waan siiyaa insha Allah maasha Allah waxaan ku soo iibsadaa 20 gini waxaad faa'iidaa 8 gini haa inankaygiyo maalintii ugu wanaagsan tahay imsa ku soo gashana 400 gini 400 gini mararka qaarkood 400 raasamaalka xitaa waxbay ka dhinaadaan shaqada goorteebaad soo gashaana subaxdii ayaan soo kacaa 10 ilaa 12 waxaan rawxaa bacda shayga intaad haysaa imika way saxabo adoo waa ilaa 10 xabo alxamdulillaah alxamdulillaah oo balqabaadeer waan ka iibsanayaa alaabtoo dhan laa ilaaha ila allah ilaahay aku waasiyo arsaaqada inakaygiyo maxaad looyaysaa abe inakaygiyo waa ku wada xidhaa maya waan kaaga tegayaa ku shaqayso adigu ilaahay baa arsaaqadan kuu soo diray abe ilaahay ku barakeeyo inakaygiyo ilaahay ku barakeeyaadee ilaahay ku ciseeyo inakaygiyo arsaaqada ilaahay ku barakeeyo aabba wiilkaygii wow ooye aabbihii runtii ilintaa ka timid aabbaha wax yar maaha gudaha ayuu ka dareemayaa culays weyn run ahaantii aad ayaanu la qayrooday ma sahlana sababtaa ula ooye aabbahaasi balgadaal ayaan ka ogaanaynaa cidhiidhi buu dareemaya aabbahani qalbiga wanaagsan ee xoogsanaya qabana xanuunka macaanka iyo dhiikarka waxaa u yimid oday curyaana oo weydiisanaya garab bal eeg naxariistu leeyahay aabbahani isla markiina waa u kacay waxaanu u tukubay isagoo weliba doonaya inuu caawiyo lacag ayuu jeebka ka soo saaray kadibna waa uu siiyey odaygii miskiinka ahaa ee curyaanka ahaa intaana ku muddayne weliba waa uu caawiyey walaal waxaad samayso waahay inaan isku naxariisanno diintan islaamka suuban ayayna faraysa aabbahani wuxuu noo sheegay inuu gabadh dhalay uu doonayo inuu aroosiyo balse aanu hayn qarash waa qalbi wanaagsan mar kale lacag kale ayuu haddana siinayaa dadka qalbiga wanaagsan leh waa kuwa isku naxariista una damqada qofka walaalkii oo dhibban isagoon u eegeen qabiilkiisa iyo mansabkiisaba ilaahayo xaqana wada garansii haddaba waxaan ku noqonaynaa aabbihii qalbiga wanaagsanaa waxaan isku dayaynaa markan inaan si weyn uga farxino anoo halkaa taagan oo sugaya wiilaan saaxiibo nahay ayaa waxaan arkay oday agtaada jooga ma saaxiibkaaba mise waa cid qaraabadaad garanaysay maya wallaahi ninaan garanay muu hayn si laakiin qof iska dhiban ayuu ahaa xaaladaydoo kale ayuu ku sugnaa oo muxuu ahaa muxuu kaa doonaynaa gabadh ayuu lahaayo sideedoo kale ayuu rabay inuu hawsheeyo ilaahay ayay mahad u sugnaatay ma waxba ku weydiistaynaa nasiibkiisa iyo irsiqiisu qaatay irsiqiisa ayuu qaatay alxamdulillaah ilaahay wayaanka inuu irsaaqa ونعم بالله إلهي أدو صوبي كادقي سجنا أنو إلهي صوبي دمانتين با إلهي با يسكوكين إرساقا صح الحمد لله رب العالمين وما الحق بسيسنا وحي إلهي يقرأ ينسيه لكن أدقى يا حق لها دمانتين بحالات بنقول السوقنا سوما سجع عريان أيها أنو لكن لغاية كسعودة ما شاء الله وصلت قلب مركز السعودة إن إلهي إرساقي سوقليو لكن لعقتها أدقى يا أبانا إنها تقبض هذا كودستو إلهي بأرساقد خير قبتي يسوقلين دونا سيدو تابا إلهي يسوقلي أيو تكلنا إلهي يسوقلين دونا الحمد لله ويلكي معناها ويحاد نفط هذا كل روحي لهيد أيها تسكبي حسيسو ما هذا أنا ويلكي وحان قولي لتقو الحمد لله لكن والله باتنقني
waxaan jeebkaaga ku jiraa yaa waa 20 giniintan aad wiilkaygiiyo haysataa 3 kinna baskan ku raaci inta kalena waa iska barakaysanoo ilaahba barakeeni 500 ku siinay ayaad wada siisay waxaana jeebkaaga keliya ku jira waa 20 gini lacagtaasna adeer waad u baahneed maxaa soo samaysaa adeer inankaygiiyo ilaahay ayaa i dabari doona waa tacbaan lugaha kama istaagi karayo waayo macaan iyo dhiikar ayuu leeyahay haddana sidaa ay tahay iskamuu fadhiisan irsaaqada ilaahay ayuu u soo baxay jid xalaala ayuu xoogsanayaa intii uu bari lahaa nin khayrkiya ayuu ka doorbiday in isagoo weliba xaalkaa ku sugan inuu xoogsado waxbaan kuu sheegaya inankaygiiyo ilaahay baan ku dhaartee mar baan soo deensaday alaab kun gaadhisa waa la meeraysanayay ilaa ee maxkamadda dariiqaas ayaan dhex qaadaya saan arsaaqadu helo wallaahi wiilkaygii tan iyo maalintii waxba lagama iibsan jeebkaygana 5 gini oo keliya ayaa ku jiray arliguna uu kululaa waxaan awoodi waaya xitaa biyo aan cabbaynaan siisto waayo wiilkaygiiyo qoyskaygii ayaa waxay cunaan iga sugaya goorma kugu dambaysay inaad ilaahay barido salaad walba tii casaro hadda u dambaysay taa waan baryay waxaan dhahay ilaahayow iga saar xaalkan aan ku suganahay sharaf baa aabbahay tahay inaan kula jooga maanta ilaahay aa ku karaamaya inankaygiiyo anigu inankaagii oo kalaan ahay aamin mustafa ayaa la yidhaahdaa inankaygiiyo ilaahay aa ku barakeeyo wiilkaygiiyo asocda mu'asasada alxayaat alkariima adugu aabba wanaagsan baa tahay ilaahay caafimaadka ku siyaadiyo waxaan guddoonsiinaynaa biladii mu'asasada alxayaat alkariima ay ku sharafto qof walba wanaagsan intana waa qarash ay kugu tala gashay mu'asasada xayaat alkariima ilaahay ku barakeeyo wiilkaygiiyo allahu akbar ilaahayo adeema ku sugnaatay yaa rabbi runtii aad ayaanu ka damqaday ooyinta aabbahaas kurbaysan ilaah kurbada kaa qaada asaqda aku balaali makaana baa wiilkaygiiyo wallaahi run baan kuu sheegay aabe oo haysa aabe ilaahay aa ku barakeeyo ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay wiilkaygii ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay wiilkaygii gabadhaadana diyaargaree qarashka ku baxoo dhanba annagaa bixinaynaa mar dambena aabe ma murugoonaysid ilaahay baa kurbada kaa qaaday inankaygiiyo laabta ma u gashan karaya aabe